السلام عليكم maanta waxaan dhigan doonaa lesson 4 a round of decimals casharkii afraad oo aan ku dhigan doono duubidda tobanlayaasha. haddaba round of waa maxay ama duubiddu? round of waxa weeye estimating of a nearest number, qiyaasida ugu dhow tiro. matalan iminka lambarkan haddii lagu siiyo 5243.7628 oo lagu yiraahdo round of to one decimal place u duub hal rog toban leh, waxa lagu weydiiyey markaa pointiga halkood waxa ka dambeeya 7kaas ayaa qiimihiisu wuxuu noqon doonaa ayaa lagu weydiiyey. markaa 7ka waxa ku aaminaya qiimihiisa godka ka dambeeya lambar ku jira hadduu kan yahay 5 saraad u duubeysa, hadduu ka yaryahay hoos baad u duubeysaa. iminka 6 baa nagu jira uu kan yahay 5 markaa sareen u duubeynaa, hal bay ku daranaa 7ka inta kale waa iskaga tegaynaa. waxaana soo baxaya 5243.8 one decimal place aad u duubtay. haddii isla lambarka lagu yiraahdo lagu weydiiyo round of to two decimal place u duub laba rog toban leh, waxaa lagu weydiiyey markaa pointiga laba god waxa ka dambeeya lambar ku jira 6ka ah. markaa qiimihiisa waxa ku go'aaminaya god ka sii dambeeya ee 2ga ah. hadduu kan maadaama oo uu 5 ka yar yahay hoos baad u duubeysaa, yani wax duubitaan ku sameyn mayside godadka ka dambeeya waad iskaga tegaysaa. markaa waxaa ku soo baxaya 5243.76 aad u duubtay two decimal place. haddii isla lambarka haddana lagu sii weydiiyo round of to three decimal place u duub saddex rog toban leh, pointiga saddex god waxa ka dambeeya lagu weydiiyey waxa ku jira lambarka ku jira oo 2ga ah. 2ga markaa qiimihiisa waxaa ku go'aaminaya godka ka sii dambeeya lambar ku jira 8ka, maadaama oo 8ku 5 ka wayay saraad u duubeysaa, hal baad ku daraysaa 2ga, 8kana waad iskaga tegaysaa. waxaa ku soo baxaya 5243.763 three decimal place aad u duubtay. example-adan ku eegi doonaa insha Allah. example 1 haddaynu eegno tusaalaha koobaad waxaa la weydiiyey round of to one decimal place u duub hal rog toban leh. tirooyinkan baynu duubinaa. iminka haddaynu eegno hal rog toban leh waxaa pointiga hal god ka dambeeya waa 2gaasa qiimihiisa la weydiiyey wuxuu noqon doono. marka 2 waxaa ku aaminaya godka ka dambeeya lambarka ku jira 6ka, maadaama oo uu 5 ka yahay sareynu duubaynaa, hal baynu ku daraynaa 2ga, labada god ee kalena waa iskaga tegaynaa. markaa waxay noo soo baxaya haddaynu eegno waxaa noo soo baxaya 257.3 oynu duubnay hal rog toban leh ama one decimal place. bda haddaynu eegno hal decimal place waxaa pointiga hal god ka dambeeya waa 6ka qiimihiisa waxaa nooga go'aaminaya godka kasii dambeeya lambar ku jira 2ga, maadaama uu 5 ka yaryahay hoos baynu u duubaynaa, macnihii labada god ee kaleba waa iskaga tegaynaa. waxaa inoo soo baxaya markaas bda 513.6 oo inuu duubnay hal one decimal place hal rog toban leh. haddii aynu eegno imika example-ka inoogu xiga ama example-ka labaad tusaalaha labaad, waxaa lana weydiiyey round of to two decimal place laba rog toban leh u duub tirooyinkan. markaas haddaynu eegno laba rog toban leh waxaa pointiga laba god inooga dambeeya waa 8ka qiimihiisa waxaa noo go'aaminaya godka sii dambeeya 2ga, maadaama uu 5 ka yaryahay hoos baynu duubaynaa. markaa waxaynu oranaynaa inoo soo baxaya 37.58 2ga waa iskaga tegaynaa. markaa waxaynu duubnay laba two decimal place ama laba rog toban leh. bda haddaynu eegno laba rog toban leh waxaa laba god pointiga ka dambeeya waa halka qiimihiisa waxaa noo go'aaminaya godka sii dambeeya 9ka, maadaama 9ku 5 ka yahay hal baynu ku daraynaa 1ka, 9kana waa iskaga tegaynaa. waxaa inoo soo baxaya markaas 52.42 markaa two decimal place baynu duubnay laba rog toban leh. taasoo noo soo baxaya. marka example-ka saddexaad haddaynu eegno example 3 ama tusaalaha saddexaad waxaa lagu yiri round of to three decimal place saddex rog toban leh u duub tirooyinkan. okay haddaynu eegno pointiga waxaa saddex god ka dambeeya waa 3 ee nagu jira 3ga qiimihiisa waxaa go'aaminaya godka kasii dambeeya lambar ku jira oo 2ga, maadaama uu 5 ka yaryahay hoos baynu duubaynaa. marka waxaa inoo soo baxaya waxaa inoo soo baxaya 5.863. markaa 2ga waan iskaga tegaynaa maadaama uu ka yaryahay 5. markaa 3 decimal place saddex rog toban leh ayaynu duubnay. bda haddaynu eegno pointiga waxaa saddex god inoogu dambeeya ee nagu jira waa 5ka waxaa noo go'aaminaya qiimaha godka kasii dambeeya lambar ku jira waa 8ka, maadaama 5 ka yahay sareynu duubaynaa, hal baynu 5 ku daraynaa, inta kale waa iskaga tegaynaa. 13 inoo soo baxay 13.93
6 8 kana waad iskaga tegaysaa marka 3 decimal place 3 rugta malayna toobnay insha Allah عشر كنا نقول حاجة إنه كي قدونه. السلام عليكم.